Fu'aad iyo noloshii internetka waa qiso jacayl oo dhab ah, waana qiso wadata waayaheeda isuguna jirta mid dhibaato iyo xanuun badan, sidoo kalena aan ka marnayn farxad iyo baraare. Haddaba dhegeystow, si aad ula socoto qisada tani, fadlan riix subscribe. Waxaana qalinka u qaatay Cabdulaahi Cumar Xasan, anigoo Shimaaliyoon ahna waan idinla socodsiin doonaa. Mahadsanidin. Qisadan waxay ku dhacday Fu'aad oo ku nool Wellington ee dalka New Zealand. Waana qiso dhab ah. Haddaba ka bogasho wacan qaybteedii koowaad. Fu'aad wuxuu ahaa wiil da'yar oo 16 sano jir ah sanadii 2003, wuxuuna ku noolaa magaalada Muqdisho. Dhalinta ay isku xaafada ahaayeen aad bay u jeclaayeen, waayo wuxuu ahaa wiil caqli badan, dabeecadiisana aad bay u qancisay inta ku nooleed xaafada uu degnaa. Xagga aqoonta wuxuu ka mid ahaa kaalimaha dhexe, macallimiinta iyo ardaydana way tixgelin jireen. Fu'aad xilligaas wuxuu dhiganayay dugsiga sare. Haddaan ka hadlo noloshiisa, wuxuu ahaa wiil adag, maxaa yeelay wuxuu ahaa mid kusoo dhex noolaa dagaaladii iyo xaaladihii adkaayay Soomaaliya. Qisooyinka iyo taariikhihiisa waxay ahaayeen kuwa isdaba yaala, wuxuuna jeclaa oo xiisayn jiray internetka oo markaas ahaa mid ku cusub magaalada Muqdisho. Website-yada lagu sheekaysto ayuu dhex mushaaxi jiray inta badan waqtigiisa internetka. Wuxuu bartay dhalinyaro badan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho oo ku kala noolaa dunida daafaheeda iyo kuwa ajnabi ah intaba. Wuxuu asxaab badan ku yeeshay oo uu ku lahaa website-ka somaliLife.com oo ahaa kan ugu sarreeya ay isugu imaan jireen dhalinta. Waxay isbarteen gabar ku nooleed dalka New Zealand oo lagu magacaabo Riyaaq, waxayna dalkaas ku joogtay 15 sano jir, waxayna la nooleed waalidiinteeda iyo dhowr caruur oo la dhashay. Riyaaq waxaa ugu harsaneyd xilligii qaangaarka xeerka u yaala qurbaha reer galbeedka 3 sano. Waxaa si isdaba yaala u bilowday sheekada u dhaxaysay Fu'aad iyo Riyaaq oo xiiso u lahayd inta isku taqaanay ee ahayd gacalka ama asxaabta website-kaas. Riyaaq waxay ahayd gabar qurux badan, misna dabeecad u saaxiiba. Waxay galeen iyada iyo familkeeda dalka Australia sanadii 1996, iyagoo sanado kadibna u wareegay dalka New Zealand. Akhrinta iyo qoraalka afka Soomaaliga waxay ahayd gabar si fiican u taqaana, iyadoo kaga fiicneyd asxaab badan oo ku nooleed ama kusoo barbaaray dalka Soomaaliya ama qaaradda Afrika amba dhexe. Fu'aad wuxuu la yaabi jiray ereyada ay isticmaasho, isagoo dhihi jiray, aniga xataa waadba iga badisaa afka Soomaaliga. Ikhiyaaray sheekada Fu'aad iyo Riyaaq waxay kasoo bilaabatay barasho caadi ah, kaftan iyo isdhexgal ayaa xigay. Maalin hadday fariin isku qorinna, maalin labaad isma seegeen. Nolosha Fu'aad haddaan wax inkaaga sheego, wuxuu soo maray dhib badan sanadihii ay socdeen dagaaladii sokeeye ee ugu darnaa. Markii ay dhacday dowladii dhexe ee Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre uu madaxweynaha ka ahaa, waxaa mar qura hal meel ku wada dhintay Fu'aad, aabihiis iyo 3 la dhalatay, halka ay ku naafowday hooyadii. Isaga iyo 3 la dhalatayna way ka badbaadeen. Waxaa cidii ku dhacay niyad jab, waxayna qaraabadii soo gooyeen in caruurta la kala qaato, maadaama hooyadood ay lugaha beeshay oo aysan awoodin in xitaa caruurta wax u qabato marka laga reebo jacaylka hooyanimo. Soo dhib ma ahan kala geynta caruur isla dhalatay oo walwal ku ahayd dhimashadii ku timid aabahood iyo walaalahood.
iyo dhibka ku yimid hooyadood oo ah in ay bashay lugaha. Fu'aad waa laga waday hooyadiis uu jeclaa iyo walaalihiis la dhashay, waxaana loo waday baadiyo oo ay wadatay haweeney qaraabada Fu'aad ka mid ahayd si ay ugu faa'iidaysato xoogga iyo mustaqbalka dambe ee wiilkan yarka ee agoonka, si uu ugu raaco xoolaha beerahana ay ugu falato. Fu'aad waxaa u bilowday nolol cariiri ah. Waxaa lagu daray caruur ay dhashay naagta wadatay ee ay qaraabada ahaayeen. Badankood way ka wada weynaayeen, way ximin jireen, wayna ku gooban jireen. Misna hooyadood karta ayaga ayay siin jirtay, waxayna dhihi jirtay isaga oo maqlaya, "Caku agoonkan dhib badana." Fu'aad subaxdii ayuu ka lihi jiray si uu waxaraha u raaco, isagoo jeclaa keligiis inuu duhurka iska joogo intii ay dili lahaayeen carruurta uu la nool yahay. Wuu iska oon jiray, wuxuuna ku cataabi jiray, "Alla ayaankaada xumaa." Been ma ahayn inuu nasiib xumaa. Wuxuu xaafadda ugu jeclaa duq-buraale oo ahaa ninka qabay guhaadu oo ahayd islaanta ay qaraabada ahaayeen. Wuxuuna ku dhihi jiray, "Iska sabir Fu'aadow, dhibka waad ka bixi doontaa." Fu'aad wuxuu ooyo, marna dhaho, "Aabbo Buraale, hooyaday iyo walaalihii goormeen arki doonaa?" Duq-buraalena niyadda ugu dhisi jiray, "Hadduu Alle yiraahdo waad arki doontaa." Ayuu la qabsaday noloshii adkeyd ee baadiyaha, wuxuuna bartay Qur'aanka. Fu'aad maalin ayuu fursad u helay inuu soo aado tuulo oo uu soo raacay dad soo biyo dhaaminayay. Fu'aad wuxuu ku fikirayay inuu goosto oo uusan u noqon noloshii dhibka badneed ee baadiyaha. Dhegeystayaasha sharafta lahow, tani waa qaybtii koowaad ee sheekadii xiisaha badneed ee Fu'aad iyo noloshii internetka. Sheekada qeybaheeda dambe waan idinla soo socodsiin doonaa insha Allah. Idinkuna subscribe dhaha channelkan si aad ula socotaan. Waana ku mahadsantihiin.